بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشر كان وعشر كوات أما lecture 1 waxaan ku baran doonaa insha Allah introduction ku saabsan MATLAB-ka basics ama bilowga. Koorsadan MATLAB-ku waa koorso aad iyo aad muhiim u ah. Waxaan ugu talagalnay koorsadan inay ka faa'iidaystaan ardayda jecel inay bartaan software-kan la yiraahdo MATLAB. Okay. Software-ka waa arki doonaa. Okay. Software-kan waxaa la yiraahdaa MATLAB. Waxaa loo isticmaalaa waxyaabo badan. Khaasatan waxaa loo isticmaalaa cilmi baarista, fiildiyada kala duwan, applicationada loo isticmaalo software-kan aad buu u badan yahay. Okay. Marka koorsadan tababarka ah oo MATLAB-ka ah software-kan waxaan rabnaa insha Allah inaad ka faa'iidaysataan. Casharadu waxay noqonayaan casharo serious ah oo isku xiga oo isku xiran. Lecturaduna aad bay u badnaan doonaan insha Allah hadduu alla yiraahdo. Waxaan ugu talagalnay arday kastoo field kasta barta ama engineering ha noqdo ama computer science ha noqdo ama information technology ha barto ama medical iyo science ha barto. Waa koorso khusayso waaye. Markii aad doonayso inaad research samayso khaasatan ardayda engineeringka iyo science-ka waxay isticmaalayaan software-kan MATLAB. Hadda PhD-da waxaan ku diyaariyaa communication engineering. Software-kan ayaan waxa weeye maaragtay experimentyada waxyaabaha ugu badan aan ku sameeyay ka mid tahay. Marka waa software aad iyo aad muhiim u ah. Casharada aan ku dhigan doono MATLAB-ku inta badan code ayaa wax lagu qoraa. Code-ka iyo qaabka loogu qorana insha Allah waa arki doonaa. Marka MATLAB-ku waa very powerful tool waaye. Markaan ka hadlayno MATLAB waa kana MATLAB-ka software-kana la yiraahdaa. Waa computing platform way. Waxaana isticmaala millions of engineers and scientists to analyze data, develop algorithm and create models. Modello systemyo cusub si loo sameeyo daatooyin si loo analyze gareeyo sida algorithms cusub loo abuuro. Waxaas oo dhan waxa lagu sameeyaa waa maxay MATLAB. Marka MATLAB waa software tool aad u ballaaran way. aad iyo aad muhiim u ah. Lugadan uu leeyahay inta badan inaad aragtin baa laga yaabaa. Marka MATLAB-ka yaa isticmaala applicationska MATLAB-ka aan fiirino. Main applicationska ama okay. Hadda waxyaabahan research-yada ugu badan oo hadda socda artificial intelligence-ga, machine learning-ka, waxyaabahaas oo dhan waxaa loo isticmaalaa software-kan. Waana arki doonaa applicationada iyo waxyaabahaas oo dhan waa idin tusi doonaa software-ka markaan galo. Marka meelaha loo isticmaalo waxaa ka mid ah statistics and machine learning. Waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo curve fitting. Waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo control systems. Systemyadan wax lagu controlayo oo maaragtay kala duwan signal processing-ka, mapping-ka, maxaan ku rahdaa deep learning-ku waa qayb ka mid ah AI-da ama artificial intelligence-ga oo waxyaabaha ugu muhiimsan iyo research-yada ugu muhiimsan oo hadda aadka loo diyaariyo ka mid yahay financial analyzing. Dadka accounting-ka barta ifan software-kan MATLAB-ka waa u baahan yihiin kasoo kuwa ardayda engineering-ka. Image processing sawirada iyo image-yada iyo qaabka loo process gareeyo waxyaabahaas oo dhan. Text analyzing markaad analyze garaynayso qoraal iyo waxyaabaha. Marka applicationada loo isticmaalo aerospace-ka macal tool u khaasa oo MATLAB-ku leeyahay baa jira waana arki doonaa insha Allah. Dadka caafimaadka barta ifan way toolal u khaasay leeyihiin oo ay daatooyinka iyo waxyaabaha caafimaadka la xiriira ay ku analyze garayn karaan. Marka MATLAB-ku waa software aad iyo aad muhiim u ah. Qofka hadduu si fiican u barto waxaa u fududaanaya research-yada oo kale inuu sameeyo. Research waxa ugu muhiimsan waa maxay inaad baxsi samayso, experiment samayso, result hesho kadibna aad wax ka qortid wey. Marka experimentiga hadduu ku fududaado
waxa kuu fududaanaya inaad maaragtay aad eh, wax publish garayso oo cilmi baarista aad samayso. Marka ardayda Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa softwarekan inay aad u bartaan MATLAB. waxyaabahan ku kofar garayn doono MATLABku waa waxyaabo beginning ah oo aan ugu talagalay ardayga starting pointiga inuu wax ka fahmo bal softwarekan iyo qaabku u shaqeeyo. sidoo kaleeto ilaa iyo advance level noo wadi doona casharada mar walba gadaal ay kor usii socdaan. advance level bay sii noqon doonaan insha allah doonaya. meel fiican baan rajaynaya insha allah inaan korsadaan gaarsiiyo si ardaydoo dhan uga faa'iidaystaan. ardayda korsadan aan ugu talagalay waa arday kala duwan: engineering, science, medical, field kasta, accounting, management, everything. marka filli kastana waxaan ka taataabanaynaa waxyaabo ka mid ah filliyada. tusaale ahaan ardayga multimedia ha barta imageyada qaabka loo manipulate garay waxyaabahaas arki doona. audioga sida maaragtay codadka loo akriyo casharada aad ku baran doontaan insha allah duwaleera. ardayga waxa weeye electricalka barta Fourier transformka waxyaabaha signaliska sound waveska waxyaabahaas oo dhan baa ku arki doonta. marka sidaas qof walba ula xiriirtaa. marka softwareka haddaan soo furo softwarekan licensigiisu waa yara qaali. marka inta badan haddaa arday tahay jaamacadaada ayaa ku siinaysa. aniga hadda akoonkan magacayga ku qoran Cabdinaasir waxaan isticmaalayaa MATLAB 2023A baan isticmaalayaa. waa academic use. academic use waa maxay? jaamacadayda ay siisay softwarekan. wuxuuna haddii aan anigu ay yiraahdo waan licensigayga aan gadanayaa academic use ma noqonayo, personal buu noqonayaa, waana yara qaali. marka arday walba wax ku dhiirigelinaya insha allah inay raadiyaan jaamacadahooda ka raadsadaan softwarekan eena la soo degtaan. aniga marka experimentiga aan samayn doono insha allah oo kursadan wax ku samaynayaa 2023 waa kii ugu dambeeyey wey. marka softwarekan marka aasaa usoo furto wuxuu leeyahay wuxuu kuu soo saarayaa windows kala duwan. windowgan hoose waxaa la yidhahdaa workspace oo markaad shaqo qabanayso variableska waxyaaba variables la yidhahdaan arki doona insha allah halkaasi kuu soo gelayaan. command window baa la yidhahdaa. command window waxa loogu talagalay in aad koodhka ku qorto isla markuu ku tuso. editor baa jira. editorkana waa arki doonaa hadda waa la yidhahdaa oo isaguna ah meel koodhka lagu qoro oo lagu diyaarsado. qaybtan waa maxay? waa current folder. folderkan ii furan oo computerkayga ka furan softwarekan uu igaga furan yahay oo marka aan shaqada ku qabsanayo aan wax ku safe garaynayo folderka aan wax ku safe garaynayo halkan uu iga soo baxaya. marka hadda folderkan aan wax ku safe garaynayo computerkayga wuxuu kaga jiraa folderka e kadibna wuxuu kaga sii jiraa folderka training and workshops and courses wuxuu kaga sii guda jiraa MATLAB training course. marka haddaan halkan ka furo marka koowaad wuxuu ku jiraa folderka la yiraahdo e kadibna wuxuu ku jiraa training and workshops kadibna waxaa kusii jiraa MATLAB course kadibna training course. hadda folderkan halkan iiga furan computerkayga iiga furan oo 4 file ku jiraan waa kana halkan markaan ka furo 4 file waa. marka halkan wuxuu kaa tusayaa folder. qaybtan wuxuu kaa tusayaa command window. marka qaybtan waa homeka wuxuu kaa tusayaa waxyaabahan oo dhan buu kaa tusayaa. marka simulinkii waxyaabaha simulationka oo koodhka markaadan aadan samaynin inta badan MATLABka markaad systems rabti inaad samaysid waa inaad koodhka qortid. tusaale ahaan inta badan filligii waa communication marka laga hadlayo 3 qaybood weeye: transmitter, channel iyo receiver. transmitterka waa fariin dirihii, channelkii la marsiinayay iyo receiverkii. marka koodhka aad markaa samaynayso waa inaad 3 qaybood aad u kala qaybsaa. okay. marka waxaa jira simulinkan waxa ku kaydsan applicationada oo dhan oo keliya oo isku xirxiraysa. marka isagana insha allah cashar gooni aan kaga hadli doonaa hadii waa la yiraahdo insha allah. qaybtan waxaa la yiraahdaa plotska waa lagu plot garayaa. qaybtan waxaa ku jira applicationska. MATLABkan applicationno kala duwan baa loogu talagalay in isticmaalaan. tusaale ahaan haddaan soo furo
qaybtan MATLAB courses applicationada MATLAB-kan data cleaner code analyzer waxyaabahaas oo dhan baa ku jira applicationadaas oo dhan applicationada la xiriira machine learning and deep learning oo inta badan ardayda computer science-ka iyo ardayda engineering-ka khaasatan electrical engineering si fiican bay u garanayaan iyo ardayda computer engineering-ka machine learning iyo deep learning waxyaabaha haddaad marka aad ka research samaynayso machine learning iyo deep learning la xiriira applicationadan aad isticmaali kartaa haddii aad qabanayso research la xiriira mathematics statistics iyo optimization wax la yidhaahdo applicationadan aad isticmaalaysa haddii aad ku shaqo leedahay control system design inta badan ardayda electronicska baa loogu talagalay applicationadan aad isticmaalaysa ardayda robotics and autonomous systemska barata iyagana applicationadan isticmaali karaan automated ardayda signal processingka iyo communicationka filligan isgaarsiinta iyo signal processingka iyaguna waxay isticmaali karaan applicationadan oo ardayda barata image processingka iyo computer science-ka iyo iyaguna ruuxadooda waxay isticmaali karaan applicationadan sidoo kaleeto dadka financiga barta oo accountingka iyo waxyaabaha iyagana waxay isticmaali karaan applicationadan isticmaali karaan sidoo kaleeto ardayda barata biologyga iyo waxyaabahaas iyagu ruuxadooda waxay isticmaali karaan applicationska so saa idin sheegay softwarekan waa software aad u ballaaran applications kala duwan support gareeya applications kala duwan filiyo kala duwan baa loo isticmaali karaa caafimaad ha noqoto engineer ha noqoto science guud ahaan every subject baa loo isticmaali karaa marka applicationada oo dhan baa halkan ku jira marka aan dib ugu soo laabto home file cusub markaad rabto inaad file furto hore kuugu save garaysnaa computerkaaga halkanaa kasoo furaysaa mid cusub markaad rabto inaad abuurto waxaa rabaa anigu script baa tegeysaa script ama waxaad taaban kartaa control n marka script markaan ku dhufato wuxuu kuu furayaa halkan kuu furayaa sidoo kaleeto fileka waa inaad magac ula baxdaa ama control s aad taabataa save garaysaa control s marka anigu waxaan si ka fudud baan idin tusayaa halkanaa ku dhufanayaa right click new baan leeyahay new markaa idhaahdo script waan ku dhufanaya fileka magaca ula baxdu ku leeyahay anigu marka fileka magac baa ula baxaya introduction baan leeyahay cashirkan waa introduction okay markaan ku dhufto MATLAB wuxuu support garayaa .m Excelka oo kaleeto .xsl something like that baa ugu dambeeya file walba tusaale ahaan faylasha PDF-yada maxaa ugu dambeeya .pdf MATLAB maxaa ku garanaysaa marka inuu filekan uu yahay MATLAB .m baa ugu dambeysa hadda kan oo kaleeto my voice .mp3 kan hadda MATLAB ma ah waa cod weyn laakiin kan hadda muxuu yahay .m waa MATLAB file ah MATLAB marka halkan marka waxaa la yidhahdaa editor qaybtan oo dhan waxa weye waa editor waa meesha aad koodhka iyo aad ku qoranayso qaybtanna waa maxay waa command window isagana koodhkana waa ku qori kartaa waana ka rangarayn kartaa okay tusaale ahaan command window markaa isticmaalayso koodhka markaad rangaraynayso isla markiiba haddii aadan raacin semicolons tusaale ahaan semicolon haddaadan raacin hore ayuu maaragtay ka rangaraynayaa waana arki doonaa insha allah doolaya laakiin qaybtan editorka markaad isticmaalayso ma rangaraynaya ilaa aad ku dhufato qaybtan run sectionka ah okay tusaale ahaan MATLAB-ku wuxuu isticmaalaa numbers uu isticmaalo waxaa ka mid a waxa la yidhahdo variableku marka waa maxay variableku tusaale ahaan x is equal to 5 markaa idhaahdo marka waxaan leeyahay variableka x waxaa iigu haysaa oo aad iigu haysaa 5 okay markaan rangareeyo workspace halkan waxaa ii soo gelaya
variablekan x value igu jiro waa maxay waa 5 halkan marka command window-ga haddaan ku dhufto oo aan ku qoro x aan iraahdo aan enter iraahdo wuxuu ii soo saarayaa x waxay kula mid tahay 5 halkanna waa uga jeedaan oo dee variableka x waxaan ku kaydsada waa maxay 5 marka hadda haddii aan x intaan ku dhufto semicolon isku dhufto aan enter iraahdo waxba ma rangaraynayo marka qaybtan command window-ga la yiraahdaa laakiin haddii aadan semicolon israacin tusaale x kaliya aad taabato wuxuu kuu soo saarayaa waa maxay automatic 5 isaga rangaraynaya marka qaybtan waxaa la yirahdaa command window qaybtan waxaa la yirahdaa editor qaybtan waa workspace-kii qaybtanna waa folderka aad faylasha iyo macluumaadka aad ku save garaysanayso waqti xaadirka okay marka variableka x maxaan ku kaydsaday 5 okay marka aan check garayno size-ka variable of x size-ku ka kooban yahay variableka x variableka size-ka x wuxuu ka kooban yahay 1 that means waa maxay waa 1 by 1 row 1 column okay matriceska waxaan filayaa inaad aad ugu fiican tihiin xisaabaadka iyo xabahaas marka de numberkan 5 wuxuu noqonayaa 1 by 1 okay hadda marka haddaan iraahdo 5 comma 6 okay oo aan rangareeyo aan iraahdo value x muxuu ii hayaa okay sorry haddii aan iraahdo waxaan isticmaalayaa square brackets square bracket okay 5,6 haddaa iraahdo hadda 5,6 a iraahdo oo aan rangareeyo variableka x waxay ugu kaysan 5,6 okay halka marka haddaa iraahdo x maxay ila mid tahay 5,6 marka haddaa iraahdo variablekan x size-kiis muxuu noqonayaa size-kiis wuxuu noqonayaa 1 row 2 column 1,2 buu noqonayaa 1,2 ama 1,2 sababtu waa maxay wuxuu ka kooban yahay 1 row iyo columnka koowaad iyo columnka labaad marka MATLAB-ku wuxuu support gareeyaa wax la yiraahdo variable wax la yiraahdo matrices marka sida ula socda matricesku aad iyo aad muhiim hadda haddii aan iraahdo okay columns baan siinayaa okay haddaa iraahdo value of y waxaad iigu haysaa 6,7 okay laba dhibcood haddaa iraahdo okay 6,7 laba dhibcood aa iraahdo 8,9 okay 8,9 haddaa iraahdo okay oo aan rangareeyo value of y wuxuu ii hayaa 6,789 6,789 okay value of y wuxuu ii hayaa ama okay value of y wuxuu ii hayaa 678 marka hadda muxuu noqonayaa 1 row iyo imise column 4 column 1 row columnka koowaad columnka labaad columnka saddexaad columnka afraad marka haddaa iraahdo size of y wuxuu soo saarayaa 1,4 marka sidaas waa inaa u fahantaan sida marka waxaan rabaa inaan sameeyo 2 row 2 column inta hadda waxaan soo aragnay 1 row 1 column marka variableka set waxaan ku kaydinayaa waxaan rabaa 2 row 2 column maxaan samaynayaa marka waxaan leeyahay 1 comma markaad tiraahdo 2 waxay wada noqonayaan hal row buu noqonaya marka rowga labaad si aan u sameeyo waxaan isticmaalayaa semicolon baan isticmaalaya okay marka waxaan leeyahay 3,4 hadda markaan rangareeyo wuxuu ii soo saaray
1,2 3,4 halka marka value-ga aan taabto set wuxuu isoo saaray 1 2 waa rowga koowaad 1 2 waa rowga koowaad semicolonkan marka muxuu samaynayaa rowga labaad buu abuurayaa 3 4 hadda haddii aan ku daro colon semicolon aan ku daro oo iraahdo 5,6 wuxuu kusii darayaa 5 iyo 6 okay value set ay iraahdo kusii darayaa 5 6 marka waa inaad saa ula socotaan markaan ka hadlayno MATLAB-ku wuxuu isticmaalaa wax la yiraahdo variable iyo matrices okay marka hadda iraahdo value of x maxaa hadda igu kaysan 5,6 soo ma fiiri value of x maxaa igu kaysan 5,6 marka haddaan rabo inaan bedelo hadda tusaale ahaan waa horizontal haddaan vertical rabo inaan ka bedelo maxaan leeyahay x dhibicdaasoo kor ka saaraya okay wuu bedelayaa awal muxuu ahaa horizontal hadda muxuu noqday vertical buu noqday marka haddaan iraahdo size x okay wuxuu leeyahay waa 2 row iyo 1 column sababtu uu leeyahay 2 row 1 column waa maxay because of waa row 1 waa row 2 iyo 1 column waxaan filayaa inaa xisaabaadka aad ugu fiican tihiin iyo matriciska waa bedeli kartaa row column row saasay isugu bedbedelaysa marka aad bedelayso keliya waxaad isticmaalaysaa dhibicdaas isticmaalaysaa tusaale ahaan hadda value set wuxuu u yahay waa maxay waa 1 2 3 4 5 6 haddaan rabo inaan bedelo waxaan leeyahay set dhibic muxuu samaynayaa awal wuxuu ahaa waa maxay 3 row 2 column hadda muxuu ka dhigay 2 row 3 column soo ma jeedid waa inaad sidaa ula socotaan MATLAB-ku wuxuu isticmaalaa wax la yiraahdo variable iyo wax la yiraahdo matrices marka variable-ku waa kan wax noogu kaysan yihiin matriceskana waa kana casharada xigo insha Allah wax ku baran doonaa sida la isugu daro matriceska loo kala jaro la isugu dhufto iyo wixii la mid ah sidoo kaleeto casharka soo socda waxaan ku baranaynaa wax la yiraahdo matrixkan rabnaa insha Allah inaan si fiican ugu sii sharaxo insha Allah videoga waa dheereeyay waana introduction-kii weeye intaasoo kusoo koobaya insha Allah asalaamu calaykum